daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii anigu cusub tahay subscribe saar mobilka furdaa wararkii ugu dambeeyay kadib markii qaraxii sabdigii lasoo dhaafay xoogganaa isla markaasina galaaftay nafyo badan oo shacab ah ayaa iminka waxaa soo baxaya khalkhal amni oo ka jira caasimadda magaalada muqdisho isla markaasina gaari walba meel la dhiga waxaa la arkayaa iyagoo ciidamo isku gadaamaya isla markaasina la baarayo tan iyo markii uu dhacay weerarkii xoogganaa ex control afgooye waxaa soo baxayay khalkhal amni oo ka jira magaalada muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya ciidamada ammaanka ee dawladda ayaa sidoo kale aad u adkeeyay amniga gaar ahaan wadada Makka al-Mukarrama oo kamid ah kuwa ugu mashquulka badan caasimadda isla markaasina haddii meeshaas qarax uu ka dhaco ay noqon karto dad inay boqolaal halkaasi ku dhintaan sidoo kale ciidamada amniga gaar ahaan kuwa booliska ayaa barqadii maanta isku hareereeyay gaari saarif ah oo raaxo ah oo yaala inta u dhaxaysa shaqaalaha iyo wadada Xaaji Baasto halkaasi oo muddo hakad geliyay isku socodkii gaadiidka ee wadadaasi marayay si kastaba ha ahaatee markii gaariga ciidamadaasi ay arkeen ayay isku gadaamay isla markaasina gawaarida wadooyinka la maraya la joojiyay taasi oo loogu shakiyay inuu qaraxsido gaariga oo cidna ay saarnayn ayaa loogu shakiyay inay saaran yihiin waxyaabaha qarxa ee bambaanooyin waaweyn ah balse waxaa markii u dambe yimid qofkii lahaa iyadoona ay xaaladda caadi kusoo noqotay isla markaasina qofkii su'aalo la weydiiyey la yirina maxaa meeshaan u dhigtay isla markaasina kaga tagtay shakiga ugu weyn ayaa waxa uu yahay gaari kastoo raaxo ah oo meel cidla wadada dhinaceeda yaala inuu qarax ku jiro isla markaasina ciidamada ammaanka hadday arkaan isku gadaamayaan shalay galab sidan oo kale ciidamada dawladda ayaa isku hareereeyay gaari ku baaginaa wadada Makka al-Mukarrama gaar ahaan laamiga dhinaca meel aan ka fogeyn halka loo yaqaano Xaaji Baasto isla goobtii saakay waxaana in muddo ah xirnaa dhaqdhaqaaqa wadadaasi isla markaasina baaritaan xooggan lagu sameeyay halkaasi oo dadka laga kala eriyay yiri qarax ayaa meeshan yaala la kala carro ciidamada ayaa markii u dambeysay furay wadadaasi kadib markii uu yimid qofkii lahaa gaariga oo su'aalo aad u adag la weydiiyay saraakiisha hay'adaha amniga laguna ogaaday in uusan qarax sidin isla markaasina ninkani oo dana meeshan ka lahaa baaritaan dheer kadib ayaa ninkan la ogaaday inuu nin caadi yahay isla markaasina la sii daayay arrintan ayaa muujinaysa sida ay u feejigan yihiin ciidamada booliiska kadib weerarkii khasaaraha badan ee dhaliyay ee sabdigii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho isla markaasina in ka badan 90 qofood naftooda galaftay wixii ka dambeeyay weerarkaasi dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu baaqay inay wax ka bedesho qorshaha amni si looga hortago falalka lidka ku ah shacabka isla markaasina dadka aan waxba galabsanin hooyooyinka carruurta iyo dadka ardayda lagu laynayo ilaa iminka cid si rasmi ah xaaladii dhacday oo xilka looga qaaday amrada xisaabtan ma jirto wasiir ha ahaado wasiir amni ha ahaado taliye ciidan ha ahaado ama nin kastoo amniga quseeya si kastaba ha ahaatee nin kastoo siyaasi ah danihiisa ayuu fiirsanayaa shacabka haddii ay hal maalin 10,000 qof dhimato xataa lagama yaabo cid inay iscasisho haddii aan qodobkaas dhankaas ka gudubno qodobka kale dhanka kale weerar al-shabaab ay la damacsan tahay diyaaradaha shacabka ee laga leeyahay dalka Kenya isla markaasina digniin xooggan laga soo saaray shabaab oo damacsan inay diyaaradaha dalka Kenya soo degayay ay hawada ku duqayso dawladda Mareykanka ayaa soo saartay digniin culus oo ku aadan weerar koox ay al-shabaab damacsan tahay inay la beegsato diyaaradaha isticmaala hawada dalka Kenya isla markaasina ay doonayso inay dhul ka soo dhigto digniintan ayaa waxaa soo saartay hay'adda duulimaadka hawada ee Mareykanka ee marka la soo gaabay loo yaqaano FAA kadib markii ay heshay xog ku saabsan qorshaha al-shabaab ay ku doonaysay inay la wareegto diyaaradaha kala duwan ee adeegsada hawada dalkaasi Kenya warbixinta ay soo saartay FAA ayaa lagu sheegay inay kooxda al-shabaab qorsheynayso inay fuliso weeraro ka dhan ah diyaaradaha isticmaala hawada Kenya iyadoo adeegsanayso lidka diyaaradaha hoobiyaasha iyo hubka fudud ee gaarka macnaha loo leeyahay sida gaarka ah gaari kara halka loo yaqaano FI 260 oo jooga dhulka ah diyaaradaha ku duula FI 260 jooga dhulka isla markaasina loo adeegsan karo lidka diyaaradaha lagu soo ridi karo warbixinta ayaa lagu sheegay in weeraradani ay dhici karaan marka ay diyaaradaha degayaan ama ay duulayaan oo dhulka aad ugu dhow yihiin isla markaasina ururka al-shabaab ay la soo beegsan karaan hay'adda FAA ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo adkeeyo ammaanka hawada Kenya si looga fogaado weerarada ay qorsheynayso kooxda al-shabaab isla markaasina waxaa dhici karta meel garoonka ah ka fogeyn ay yimaadaan isla markaasina ay marqura diyaaradda dhulka soo dhigaan hay'adda ayaa ku baaqday sidoo kale inay diyaaradaha muujiyaan taxadir dheeraad ah si ay markaasina ay iska ilaaliyaan inay ku duulaan jawi hoose si looga fogaado weeraradaasi khatarta ee ku imaan kara isla markaasina malaayiin shacab ay ku xasuuqmi karaan hay'adaha ayaa xustay inay digniintani dib u eegis ku sameyn doonto 26 bisha Febraayo sanadkani aan ku jirnay maanta bilaabmay ee 2020
digniinta ka soo baxday hay-adda fa ayaa kusoo aadaysa xilli ay al-shabaab laba jibaarayso weerarada ay ka fuliyaan gudaha dalka Kenya isla markaasina weerar xooggan ay markasta ku qaado ee dad badan halkaas ku disho al-shabaab ayaa horay wacad ugu martay inay joojin doonto weerarada ay ka fulinayso gudaha Kenya al-shabaab ciidamada Kenya inta ciidamada Kenya isaga baxayaan gudaha dalka Soomaaliya isla markaasina ay nabadgelin doonto haddii aysan ciidamada Kenya ka bixin gudaha dalka Soomaaliya nin kastoo Kenyan aan aragno dhulka hoostiisa ayuu ku jiraa dowladda Kenya ayaa waxa ay Soomaaliya ka jooga ciidamo badan oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM kaasi oo Soomaaliya ka socdo in ka badan 10 sano waxayna dowladda Kenya sheegtay inaysan ciidamada kala bixi doonin Soomaaliya inta ay ka soo ciribtirayso ururka al-shabaab oo markii la dhaho urur al-shabaab gabi ahaanba ma jiro ama dalka Soomaaliya waa laga ciribtiray markaas ayaan ka bixinaa ayay dhaheen dowladda Kenya dhinaca kale taliyihii xabsiga dhexe ee xilka laga qaaday iyo mid cusub loo magacaabay isla markaasina taliyihii hore ee wiilkii ka soo saaray isbitaalka isla markaasina wiilkii oo geeriyooday ayaa xilka laga qaaday kadibna lagu eedeeyay laba rag oo al-shabaab inay ka baxeen xabsigiisa isla markaasina taliyihii xilka laga qaaday taliyihii xabsiga dhexe ee xamar jenaraal maxamed sheekh cumar xirsiile ayaa si rasmi ah xilka looga qaaday kadib markii uu dhawaan shaqada dib ugu celiyay taliyaha ciidamada asluubta mahad cabdiraxmaan aadan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa faragelisay arrintan iyadoona ka hortagtay tallaabadii shaqada dib loogu soo celiyay taliyahani dambiilaha isla markaasina baraha bulshada la wareejinayay muuqaal laga soo duubay ay boqolaal kun oo Soomaaliya ka caroodeen taliyaha cusub ee xabsiga dhexe ayaa waxaa loo magacaabay gaanshaale sare aadan xuseen kulmiye sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ila lagu kulsoon yahay isla markaasina goobta joogtay xirsiile ayaa waxaa horay loogu soo duubay muuqaal isagoo mid ka mid ah isbitaalada muqdisho kala soo baxaya bukaan xabsiga dhexe ee xabsiga dhexe ku xanuunsanaa oo ay dhaqaatiirta xabsiga sheegeen inaan wax looga qaban karin isbitaalka ku yaala gudaha xabsigaasi bukaankaas ayaa lagu magacaabi jiray xasan kurtun calisow oo ku jiray xaalad halis ah ayaa ugu dambeyntii ku geeriyooday xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho isla markaasina eedeyn xooggan loo jeeday taliyahaasi arrintani ayaa sababtay in dad badan oo dadweynaha muuqaalkani la dhigay baraha bulshada ay ka caroodeen falka naxdinta leh iyadoona sidoo kale eheladii marxuumka ay dalbadeen in xilka qaadis lagu sameeyo taliyaha isla markaasina cadaaladda la horkeeno maadaama uu dambiile yahay nin garaab ahna uu ka soo watay isbitaalka isla markaasina markii uu keena halkaasi uu ka nuf waayey xilka qaadistan ayaa sidoo kale kusoo aadaysa iyadoo dhawaan laba maxaabiis ah oo u xirnaa ururka al-shabaab laga soo qabtay isla markaasina xabsiga ku xirnaay ay ka baxsadeen xabsiga dhexe isla markaasina ay oodagoosteen arrintaasi ayaa shaki weyn laga dhaliyay maadaama dad kale ay ku xiran yihiin aysan ka baxsanin halka ay raggan shabaabka ahayna ka baxsadeen xabsiga taas oo muujin karta in halkaasi laaluush la siiyey dadka waardiyaasha isla markaasina ay ka baxsadeen si kastaba ha ahaatee ninkani ayaa dembiyadaas iminka lagu hayaa waxaana macquul ah in maxkamad loo soo taago taas oo ku noqon karto ciqaab aad u fara badan si kastaba ha ahaatee ninkani ayaa dembi weyn ka geystay shacabka Soomaaliyeed maadaama oo si xun ula dhaqmay muwaadin garaabaha isla markaasina sariirta lagu waday fadlan calan sida media ayaad naga daawanaysaan fadlan nala joog maamulka gobolka Banaadir oo cilaamiyay banaanbax aad u weyn isla markaasina aad u gilgilaya magaalada Muqdisho loogana soo horjeedo dadka xasuuqa ka geysanaya ee ah ururka al-shabaab isla markaasina dhinac looga soo wada jeesto gabi ahaanba ayaa lagu ballamay maalinta Khamiista ay soo socdo maamulka gobolka Banaadir oo qorsheynaya in shacabka 3 milyan ee Muqdisho ku nool ay hal meel isugu imaadaan isla markaasina ay muujiyaan nacaybka u qabaan ururka al-shabaab maamulka gobolka Banaadir ayaa iclaamiyay in maalinta Khamiista uu magaalada Muqdisho ka dhici doono banaanbax weyn oo looga soo horjeedo al-shabaab oo dhawaan qarax xooggan ku geystay magaalada Muqdisho isla markaasina dad aad u fara badan oo rayid ah halkaasi ku xasuuqay isla markaasina dhibaato xooggan soo gaarsiiyay مسؤولين كتيسان قبل كبنادر أيها شيء إن بنام بحا أي كخيب جلي دوران قيبها بولشدا لغو قبن دونه تعالى درجة كتحصون سلامر كاسنا حال كاس لغو موجين دونه درين كودو قف كاستا أو كحانون صغير قرحي معلم دويد لغو حسوقي دميار لي وإني كسو قيب كلان أيها بإن إسلامر كاسنا أي موجيان دارين كودا إسلامر كاسنا أي قرب استاغان ولا له دي الحسوقي dibadbax weyn waxa la yiri dibadbax weyn waxay reer Muqdisho ku muujinayaan midnimada iyo in meel lagu soo wada jeesto ciribtirka ururka al-shabaab iyo ka hortagga falalka guracan oo argagixisada ku xasuuqayaan shacabka Soomaaliyeed ayuu yiri mas'uul ka tirsan maamulka gobolka Banaadir isla markaasna warbaahinta la hadlayay ugu yaraan 9 qof oo shacab u badan ayaa ku dhimatay in ka badan 150 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxii xooggan oo maalmo ka hor ka dhacay ex control afgooye
magaalada muqdisho waxaana qaraxaasi 2 cisho kadib sheegatay ururka al-shabaab kadib markii hay'adda nisa ay ku eedeysay dal shisheeye isla markiiba ururka al-shabaab ayaa soo booday oo sheegtay ururka al-shabaab ayaa markii ay qarax yar ay geystaan durbadiiba saacad in ka yarba soo sheegan jiray waxaa arrintaasi la leeyahay far ayaa ku gudan maadaama 2 habeen ay ka aamustay markii labaadna ay sheegatay taasi oo la doonayo in la yiri in ururka al-shabaab lacag la siiyay isla markaasina dal shisheeye gacan saar leedahay oo loogu talagalay arqadeynta dadka Soomaaliyeed isla markaasina horumarka loo diidan yahay ururka al-shabaab ayaa sheegay in wadada laga dhisayo magaalada muqdisho ee afgooye dadka dhisaya ay ugu talagaleen taasi macnaheedu ay tahay wada kasta oo la dhisayo oo shacabka ku danaysanayaan ama shacabka loogu danaynayo inaysan raali ka ahayn banaanbaxan ayaa ujeedadiisa ay tahay in meel looga soo wada jeesto ururka al-shabaab isla markaasina doonaya inay shacabka kumanaan qof ay u laayaan haddaba haddii aad muqdisho joogtid ayaa la yiri waa inaad kasoo qayb gashaa banaanbaxaas isla markaasina mara guduudan aad ku xirataa madaxa si aad u muujiso dhiigii walaalihii la shubay banaanka lagu daaday isla markaasina la dilay oo adigana aad u muujisaa dhiigaaga isla markaasina meel looga soo wada horjeestaa